means multiply. Every time you see this, you multiply. A negative times a negative equals a positive. A negative times a negative equals a positive. Say it. A negative times a negative equals a positive. Say it. A negative times a negative equals a positive. Again. A negative times a negative equals a positive. A negative times a negative equals a positive. I can't hear you. A negative times a negative equals a positive. Louder. A negative times a negative equals a positive. Louder. A negative times a negative equals a positive. Why? Okay, why? sabab maxay laba minus isku dhufashadoodu plus u tahay haddii aad isku daydo inaad xalliso isla egta x squared plus 1 equals 0 isla markiiba darbigeed hardinaysaa kabacdi waxaad aasaasi doontaa imaginary numbers waxaad sidaa u yeelaysa oo dhan waxa weeye inaad aqbashay fikradda yar ee ku oranaysa minus lagu dhuftay minus waa plus haddii kale oomaad baahateen inaad imaginary numbers asaasto sababtoo ah xididla wajbaarka -1 buu noqon lahaa haddaba si aan u fahanno sababta -1 lagu dhuftay -1 ay oo la mid tahay +1 ama minus lagu dhuftay minus uu u yahay plus waxaan u baahannahay inaan dib u laabano xagee ku dhufasho haddaba waa maxay ku dhufasho bini aadamku markasta waxay jeceliin in hawlahooda soo koobaan sida ugu fudud oo ay u qaban karaan inay qabtaan waana sababta ay wax kasta oo hadda ay sameeyeen u sameeyeen gawaarida tiyaaradaha computerka calculatorka wax kasta qalab ag yaala ama badankood waxay ka caawinayaan bini aadamka in ay hawl ay waqti ku bixin lahaayeen waqti ka yar ku bixiyaan iyo juhdi ka yar iyo tamar ka yar ku dhufashadana waa intaa bini aadamku waxay awoodi waayeen ama ka wahsadeen inay ku dar badan soo celceliyaan nambaro badan oo dhowr jeer isku dardaray sidaas bay waxay u asaaseen ku dhufasho oo ku dhufashadu ma ahan wax kale ee waa ku dar la soo celceliyay haddaba tusaale ahaan haddii aad maanta soo martid 5 group oo ubaxyo ah group kastana uu ka kooban yahay 7 ubax waxaad arkaysaa inay wadarta ubaxyadu yihiin 35 ubax sidoo kale haddii aad soo martid 5 xaynood oo ari xayn kastana ay ka kooban tahay 7 neef waxaad arkaysaa wadartu inay tahay sidii hore si la mid ah 35 waxyaabo kale oo tiro badan hadda u fiirisid min 5 kooxood oo 7 ka kooban waxaad arkaysaa wax kasta inay soo baxayaan 35 waana wax iska waadax oo muuqda sidaas si la mid ah 6 kooxood oo min 6 ka kooban waxay doonaan haadeen waxa tirayno waa 36 tirooyinka kale oo dhanna waa sidaas dhamaantood kuma xirna shayga la tirinayo waxa uu yahay mar kasta waxa soo baxaya tiro go'an haddaba dadku way fakareen waxay dhaheen maxaa u sameyn la'anahay tusaale ahaan oo kale 7 kooxood oo min 5 35 maxaa u dhihi la'anahay waxaa jira xiriir ka dhaxeeya 5 iyo 7 oo xiriirka markaan dabaqano 35 ina siinaya xiriirkaas waa maxay bay dhaheen ku dhufasho u bixiyeen haddaba ku dhufashadu wax kale ma aha ee waa hawl fududays waxay ku fududaynaysaa inaad tirooyin u waqti kaaga bixi lahaa isku dardarkoodu inaad hal mar dhahdid waa intaas sidaasna aad ku aliftay xisaab cusub oo aad u bixisay ku dhufasho waxa qosol leh inay ka bacdina ku dhufashadii laftigooda bini aadamku jeclaysteen wax u sii fududeeya oo intay dhihi lahaayeen 5 ku dhufo inay dhaheen 5 waxaa ku jibaartaa 3 inta jeer isku dhufanaysa ku jibaar markasta inay wax sii fududeystaan baraan waana maanka bini aadamka iyo awoodiisa haddaba aan soo laabana pointkeena waan isku dayn inaan caddayno in minus lagu dhuftay minus uu plus yahay laakiin intaa ka hor si aan u caddayno intaan waxaan ku khasbanahay sidoo kale inaan caddayno in plus lagu dhuftay minus uu ku siinayo minus haddaa taa hore soo caddaysa waxay kaa saacidaysaa inaad tan dambe si fudud u caddaysid si aan labadaasba u caddayno waxaan u baahannahay inaan dhigano 3 muqaddamo 3 hordhac kuwaas oo naga caawin doona inaan si fudud ku caawino labadaba hordhacyadu midda koowaadi waa 5 lagu dhuftay 0 waa 0 dhammaanteen waa isku waafaqsanahay sidoo kale 5 laga jaray 5 inay 0 tahay dhammaanteen
waa isku waafaqsannahay sidoo kale 5 lagu dhuftay 2 lagu daray 3 inaan u qori karno qaabad ah 5 lagu dhuftay 2 oo lagu daray 5 lagu dhuftay 3 oo ah astaanta ku furfuridda 3 hadda isku waafaqno waxaan noo fududaanaysaa inaan cadeyno minus lagu dhuftay minus plus iyo plus lagu dhuftay minus minus taa koowaad isku dayna inaan cadeyno 5 lagu dhuftay 5 laga jaray 5 5 laga jaray 5 waxaan naqaanaa inay eber tahay sida darteed eber lagu dhuftay 5 waxaan sii aqaanaa inay la mid tahay eber laakiin balqaabadii kala samee ahayd ku furfuridda waxaa dhahdaa 5 lagu dhuftay 5 waa 25 laakiin ma aqaana waxa ay tahay 5 lagu dhuftay minus 5 sida darteed meel banaan iska dhig intaa waa inay isiisaa eber oo waa khasab su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay 25 la raaciyay tiro aan aqoon 0 ku siinayaan haddaba tiradaas waa tee 25 eberta u bedeli karaysa meesha waxaa ka cad tiradaas inay noqon karto oo keliya minus 25 sida darteed meesha waxaa ka cad 5 lagu dhuftay minus 5 inay la mid tahay minus 25 taa macnaheedu waxa weeye plus kan tiradan wadato oo lagu dhuftay minus ka ay 5 tan wadato waxaa khasaba inay ku siiyaan minus kaas sida darteed plus lagu dhuftay minus ama minus lagu dhuftay plus oo minus taa koowaad waan cadeyna tan labaad baa ku soo hartay isla istiraatiijiyadii isticmaal laakiin waxaa ka dhigtaa meesha ay dhigtay 5 ku dhufo minus 5 ku dhufo minus 5 lagu dhuftay 5 laga jaray 5 maxay la mid tahay waxaan qaanaa 5 laga jaray 5 inay eber tahay sida darteed eber lagu dhuftay tiro waa eber sidoo kale igu furfur minus 5 ku dhufo minus iyo plus hadda taana soo bartay minus iyo plus isku dhufashadoodu inay minus tahay sida darteed waa minus 25 minus minus ku dhufo ama minus 5 minus 5 ku dhufo ma garanayo waxay tahay eber tiri minus 25 tiro la raaciyay ayaa waxay ku siin doontaa eber haddaba waa tirada minus 25 eber bedeli karto haddii aad ka fikirto waxa ku soo baxaysa tirada inay kaliya oo noqon karayso plus 25 taa macnaheedu waxa weeye minus 5 lagu dhuftay minus 5 waa plus 25 ama si kale haddaan u dhaho minus lagu dhuftay minus waa plus sidaasna waxaana ku cadaynay pointigii labaad ee ahaa minus lagu dhuftay minus waa plus haddaba warku wuxuu kusoo ururayaa minus lagu dhuftay minus annagu kama aanan dhigin plus haddii aan ka dhigi karayno ama aan bedeli karayno waa bedelaan lahay laakiin annagu kama aanan dhigin waa ku khasbannahay inaan dhahno waa plus haddii aan dhihi weyno innagaan madaxa waxaa la galaynaa istiidooyin iyo paradoxes iyo inaan burburino dhammaan xisaabtii aan soo dhisanay sidoo kale waa ku khasbannahay inaan la tacaamulo imaginary numbers meel kale oo aan ka aadno male taasi waa intaas ugu dambeyn 2 point aan kaaga tago pointiga koowaad waxaa laga yaabaa is leedahay mar hadba hadday tahay ku dhufashadu ku dar la soo gaabiyey jibaarkuna uu yahay ku dhufashada la soo gaabiyey ma laga yaabaa inaan ka maaranno labadaba sidii doonta aan ugu adkaatay oo aan ku koobsanno ku darta kaliya jawaabtu waa maya way adag tahay inaad ku koobsatid ku dar iyo ka jar adduunkan wuu adag yahay si loo sifeeyo markaad rabto inaad sifaysid adduunkan waxaad u baahan tahay tools badan oo kaa caawiya adduunkan inaad sifaysid haddaba sayniska iyo xisaabta markaad joogtay way adag tahay inaad waxyaabaha kugu hareereysan waxyaabaha dhacaya inaad sifaysid adeegsanaya ku dar iyo ka jar waxyaabaha qayb siyaadaya waxay u siyaadaan qaab ku dhufasho qayb waxay u siyaadaan qaab jibaara qayb qaab kale u siyaadaan sidaa darteed way kugu adkaanaysaa inaad sifaysid ama waxaa dhihi karanaaba macquul ma aho inaad sifaysid caalamka kugu hareereysan adoo adeegsanaya ku dar iyo ka jar kaliya qodobka labaad waxaad ku aragtay usuul fiqiga ama logic iyo mantiq haddii aad dhigatay qaacide aada uga eg minus lagu dhuftay minus inay plus tahay qaacidadaas waxay ku leedahay haddaa xasuusatay nafyi ithbaat haddii aad shay aan nafisay mar labaad nafisid waxaa soo baxaya shayga aan sugtay tusaale ahaan oo kale hebel iskuulku aaday
وجملة بوزيتيفة. هبل سكول كما هو آدين وانا فيسي انت سينا في ما أهان هبل إن أوسن سكول كآدين تامعنا ذو حوي هبل سكول كما هو آدين أو أميال لي رسوم مرتي. هذا بقى minus minus plus نفي النفي إثبات.